teendho gudaheeda Sasha waxay isticmaalaysaa koolo si ay u hagaajiso nabarrada badan ee faraha kaga yaal. Kadibna waxay dibadda u eegtaa iyadoo muujinaysa in teendhadu ka laadlaadsan tahay dhinaca buur ku taala Norway. Isla marka saaxiibkeed Tommy uu soo tooso waxay ka codsataa inay sii wadaan safarkooda. Labadu waxay sii wadaan fuulista buurta iyagoo leh xirfado muujinaya inay muddo dheer samaynayeen. Waxay hakad galaan oo keliya si ay wax u cunaan ama u qayliyaan farxad, inkastoo mararka qaar ay isdhunkadaan. Wax yar kadib markay ku dhow yihiin inay gaaraan dusha, Sasha way simbiriirxataa. Xadkaha ayaa ka hortaga inay dhacdo, balse Sasha aad bay uga xanaaqdaa sababtoo ah mar walba waxay ku fashilantaa isla meeshaas. Tommy wuxuu ku yiraahdaa si degan u qaado, laakiin Sasha mar kale ayay isku daydaa dhowr jeer, mar walbana way ku guuldaraysataa inay horay u socoto. Markuu arko cirka oo mugdi noqonaya, Tommy wuxuu ku qanciyaa inay joojiyaan oo ay isku dayaan maalinta xigta. Teendhada gudaheeda Tommy wuxuu qirtaa inuusan haysan safarro badan oo kale, wuxuuna ka welwelsan yahay taxadar la'aanta Sasha. Wuxuu aaminsan yahay nasiibku inuu mar uun dhammaan doono, wuxuuna sheegaa in kambaskiisa nasiibka leh sidaas sheegay, balse Sasha ayaa ka tuurta gacantiisa. Waxay sidoo kale si kaftan ah dhabarka uga garaacdaa marka uu yiraahdo way xanuunaysaa. Ugu dambayn waxay ku heshiiyaan inay baxaan oo ay soo laabtaan marka duufaantu dhammaato. Dabayshu waxay keentaa burbur badan oo soo dhacaya, sidaas darteed waa inay ku dhowaadaan darbiga oo madaxa hoos u dhigan. Tommy wuxuu yiraahdaa waa inay ku nastaan meel yar oo qarka ah, sidaas darteed Sasha ayaa marka hore hoos u degta. Si lama filaan ah, dhagxaan waaweyn ayaa bilaaba inay soo dhacaan, mid ka mid ahna wuxuu ku dhacaa Tommy, taasoo keenta inuu dhaco oo madaxa ku dhaco. Isagoo miyir beelay ayuu ku laalaadaa dhammaadka xadhiga, Sashana waa inay qabataa si aysan iyaduna u dhicin. Waxay ku qaylisaa, laakiin ma soo tooso, miisaankiisuna wuxuu keenayaa inay iyaduna simbiriirxato. Si ay u badbaado, Sasha ma haysato doorasho kale oo aan ahayn inay sii dayso Tommy. Waxay si adag ugu dhigtaa qarka oo ooyeysa iyadoo daawanaysa saaxiibkeed oo hoos ugu dhacaya dhimasho. 5 bilood kadib Australia, Sasha waxay ku dhex wadataa baabuur lama degaan, waxayna ogaataa in gibskeedu signal lumiyey. Sidaas darteed waxay isticmaashaa kambaskii Tommy si ay u hesho waddada saxda ah. Marka habeenku dhaco, waxay teendho ka dhigataa meel u dhow qarka buurta oo waxay xasuusataa wax kasta oo Tommy baray iyadoo kelinimo ku jirta. Maalinta xigta Sasha waxay gaartaa Wendelin National Park. Waxay istaagtaa xafiiska si ay u eegto waraaqaha, ilaaliyuhuna wuxuu kula taliyaa inaysan keligeed tegin sababtoo ah dad ayaa ku baabaya aaga. Iyadu waxay rabtaa inay tagto si kastaba, sidaas darteed waxay saxiixdaa waraaqaha loo baahan yahay. Kadib waxay tagtaa dukaanka si ay u iibsato sahay, balse laba ugaarsade ayaa si joogto ah u dhibaya. Waxay isku daydaa inay iska indha tirto, laakiin raggu way ku dhegan yihiin oo waxay ku xanibaan meesha lacag bixinta. Markuu arko arrintan, Ben ayaa u soo gurmada, labada ugaarsadana way baxaan. Mahadnaq ahaan, Sasha waxay ka iibsataa hilib qallalan oo uu iibinayo. Goobta baarkinka, Sasha waxay aragtaa in gibskeedu weli shaqaynayn, sidaas darteed waxay Ben weydiisaa sida ugu fiican ee loo tago Gran Alnaros. Ben wuxuu siiyaa tilmaamaha, balse sidoo kale wuxuu uga warramaa Blackstone Bay oo uu aaminsan yahay inay ka fiican tahay. Wuxuu uga digaa in aagaasi mararka qaar noqon karo mid khatar ah, laakiin Sasha waxay ku kalsoon tahay nafteeda oo way baxdaa isaga oo aan dhammaysan hadalkiisa. Kadib saacado badan oo wadis ah, Sasha waxay istaagtaa haro si ay habeen u seexato. Si lama filaan ah, laba gaari kale ayaa yimaada, Sashana way ka xanaaqdaa markay aragto ugaarsadayaashii mar kale. Eykooda ayaa ku qaylinaya iyada halka raggu ka shaqaynayaan deer ay dileen. Sasha waxay qaadataa alaabteeda oo gasha gaarigeeda ka hor inta nin uusan daaqada garaacin. Way iska indha tirtaa ilaa uu baxo. Nasiib wanaag, raggu waxay baxaan habeenkii, iyaduna si nabad ah ayay u seexataa. Subaxdii, Sasha waxay qaadataa kayagkeeda oo waxay ku socotaa webiga. Socodka xooggan ayaa mararka qaar ruxa, balse iyadu waa xirfad leh oo way sii socotaa. Markay aragto biyo dhac, waxay hoos u tuurtaa kayagga kadibna waxay ku boodaa biyaha. Inta ay sii wadato safarkeeda, waxay argagaxdaa markay aragto sawirro iyo alaabo dadkii la waayey oo ku dhegan geedaha. Markay teendho dhigato habeenkii, waxay alaabteeda ku sudhaalaan si ay u qalalaan, waxayna cuntaa hilibka qallalan. Subaxdii xigtay, Sasha waxay ogaataa in alaabteedii la waayey. Markay ku noqoto teendhada, abeeso ayaa ka yaabisa. Kadib waxay sii wadaysaa safarkeeda oo waxay heshaa doon la dayacay oo u dhow wado, sidaas darteed way baartaa. Dhirta dhexdeeda waxaa jira meel yar oo xero ah iyo Ben oo aad ugu faraxsan inuu arko. Sasha waxay u sheegtaa inay lumisay alaabteedii oo ay ku jiraan cunto iyo telefoon. Ben wuxuu ku eedeeyaa Wombats wuxuuna la wadaagaa cuntadiisa. Iyagoo kalluun cunaya, Sasha waxay weydiisaa sababta uu hilibka ugu magacaabay Genos. Ben wuxuu sharxaa inuu yahay magaca hooyadiis, kadibna mawduuca ayuu beddelaa. Wuxuu tusaa inuu biyaha ka soo ururiyo geedaha oo la wadaagaa iyada. Sasha waxay sii wadataa su'aalaha, Benna wuxuu sharxaa inuu asal ahaan ka yimid Britain, isla markaana uu yimaado halkan ugu yaraan 2 jeer usbuucii. Hooyadiis ayaa u keentay isagoo yar wuxuuna jeclaaday meesha. Markay Sasha sheegto inay hadda webiyada dooratay sababtoo ah way ka daashay buuraha, Ben wuxuu qiyaasaa inay sabab u tahay kala tag. Iyadu way diidaa balse faahfaahin ma bixiso. Kadib, Sasha waxay u sheegtaa la kulankeedii labaad ee ugaarsadayaasha, Benna wuxuu yiraahdaa si fiican ayay u maaraysay. Wuxuu sheegaa inuu u tegay xerada sababtoo ah wuxuu u maleeyay inuu caawin karo haweeney keligeed ah balse aysan u baahnayn. Wuxuu u arkaa mid gaar ah sida hooyadiis.
arrintan ayaa cabsi gelisa Sasha waxayna isku daydaa inay baxdo balse Ben ayaa hor istaaga waxayna aragtaa jijinteedii gacantiisa. Ben wuxuu qirtaa inuu qaatay alaabteeda wuxuuna ka soo saaraa bacdeeda teendadiisa. Wuxuu sidoo kale qaataa arasbow iyo qalab muusig wuxuuna bilaabaa inuu ciyaaro muusig. Wuxuu sharxaa inuu dib u buuxiyey sahaydeeda balse telefoonkeeda wuu haynayaa. Hadda waxay haysataa ilaa dhammaadka heesta inay ka cararto inta ugu badan ee ay awoodo. Inta Ben uu qoob ka ciyaarayo, Sasha way orodaa. Waxay gaartaa webiga oo si degdeg ah u fuushaa kayageeda. Marka heestu dhammaato, Ben wuxuu bilaabaa inuu dabagalo isagoo ka socda xeebta. Socodka xooggan ayaa Sasha ku tuura biyodhac, kayagiina wuu rugmaa. Kadib halgan waxay ka goysaa suunka waxayna qaadataa bacdeeda iyadoo dabaalanaysa ilaa dhulka ugu dhow, kayagiina wuu qulqulaa. Jaakadeeda qoyan oo culus awgeed way iska siibtaa waxayna mar kale orodaa. Markay kaynta dhex marayso, waxay maqashaa qoys hadlaya oo raadinaysa, balse waxay heshaa telefoon muujinaya muuqaal Ben oo salaamaya mid ka mid ah qoysaska uu dilay. Si lama filaan ah, fallaadh ayaa ku soo dhacda agteeda, wayna ka baxsataa oo dhagaxyo ayay ku dhumataa. Markuu Ben ka soo muuqdo kore, waxay mar kale orodaa, dabagal ayaana bilaabma. Ben wuxuu ku soo tuuraa fallaadhaha, Sashana way ka baxsataa, balse mid ayaa lugta ka xagta. Ugu dambayn fallaadh ayaa ku dhacda bacdeeda, waxayna ku dhacdaa oo hoos u rugtaa ilaa ay webiga ku dhacdo. Sasha waxay isku daydaa inay dabaasho, balse socodku waa xoog badan yahay oo ku jiidaya. Iyadoo dhagxaan ku dhegan ayay gaartaa meel degan. Kadib waxay hubisaa telefoonka qoyska balse wuu jabay. Bacda dhexdeeda waxay ka heshaa cunto iyo biyo oo way cuntaa. Waxay sidoo kale heshaa spray basbaas oo ay dhigataa meel u dhow. Kadib Sasha waxay dhex martaa canyonyada balse ma hesho wado furan, sidaas darteed waxay isticmaashaa xirfadeeda fuulista si ay u kacdo. Kadib dhaqdhaqaaqyo khatar ah, waxay gaartaa dusha oo aragta muuqaalka guud. Waxay aragtaa doonkii Ben oo weli yaala. Markaas waxay maqashaa dhawaaqiisa oo aragta isagoo soo kacaya. Wuxuu istaagaa isagoo dhoola caddaynaya. Sasha waxay hoos ugu degtaa canyon oo dhagax hoostiisa ku dhumataa. Markuu arki waayo, Ben wuu baxaa iyaduna mar kale orodaa. Markay meel ammaan ah gaarto, waxay aragtaa Ben oo ku dhow doonkiisa isagoo muusig dhegaysanaya oo biyaha ku boodaya isagoo aan wax dhar ah wadan. Sasha waxay si taxadar leh ugu dabaalataa ilaa doonta. Waxay isku daydaa inay furto xariga balse way ku guuldaraysataa, kadibna si lama filaan ah ayay u dul istaagtaa bear trap oo qabata. Ben ayaa maqla qayladeeda oo soo orda isagoo jiidaya silsilada si uu u soo celiyo. Markay ku dhow yihiin, Sasha waxay ku buufisaa basbaas, Benna biyaha ayuu ku dhaqdaa. Iyadu waxay isku daydaa inay silsilada ka furto dhagaxa balse way ku dhegan tahay. Markay isku daydo arasbowga, Ben ayaa mar kale jiida. Kadib Ben wuxuu ku xiraa geed isagoo ku magacaabaya ugaarsigan ritual. Wuxuu ururiyaa miro iyo geedo si uu u siiyo, balse Sasha si dhib leh ayay u cuntaa. Habeenkii roob ayaa daa, Benna teendadiisa ayuu joogaa halka Sasha geedka ku xiran tahay. Wuxuu sharxaa muhiimadda ritualka iyo in xanuunka la qaato uu yahay koritaan. Subaxdii Ben wuxuu ku xiraa doon si uu u qaado, wuxuuna sheegaa inuu ka ogaaday magaca iyo in Tommy dhintay isagoo ku tuhmaya Sasha. Kadib Sasha waxay aragtaa bir qarsoon balse Ben ayaa riixa. Waxay gaaraan god halkaas oo ay ka aragto meydad la laalaadiyey. Ben wuxuu sharxaa caadooyin qabiil oo ku saabsan cunista beerka, wuxuuna muujinayaa carruurtii la dilay. Sasha waxay ogaataa inuu hilibka dadka ka sameeyo jerky. Markay isku daydo inay baxsato, Ben ayaa qabta. Ugu dambayn Sasha waxay qaniintaa dhegtiisa oo baxsataa, waxayna ku dhacdaa webiga. Labadooduba waxay ku dhacaan biyodhac, silsiladuna way ku dhigtaa. Kadib halgan dheer, Sasha waxay isku daydaa inay ka goyso balse way ku guuldaraysataa. Markii Ben soo tooso, Sasha waxay isku daydaa inay ku hafiso. Dagaal adag kadib Ben ayaa sii daaya. Sasha waxay ku garaacdaa dhagax, Benna wuxuu jebinayaa sankeeda. Labadooduba way daalaan. Habeenkii Sasha waxay qirataa wixii ku dhacay Tommy iyo dembiga ay dareemayso. Subaxdii waxay aragtaa dhaawaca Ben oo xumaaday. Waxay go'aansadaan inay fuulaan si ay u badbaadaan. Ben wuxuu ogolaadaa isagoo ka qaadaya xadhiga. Fuulistu way bilaabataa, Sashana waxay mar kale muujisaa xirfad. Ugu dambayn waxay gaartaa meel qarka ah oo ay xadhiga ku xirto geed yar. Markay ka furto, Ben ayaa jiida balse iyadu way badbaadaa. Kadib Sasha waxay ka furtaa xadhiga, Benna wuu dhacaa oo dhintaa. Inkastoo aysan qalab haysan, Sasha way sii fuushaa ilaa ay gaarto dusha. Waxay jiiftaa iyadoo qoslaysa kadibna ooyeysa. Ugu dambayn waxay gaartaa waddo oo gaari ayaa badbaadiya. Subaxdii Sasha waxay ku noqotaa xafiiska oo waxay sheegtaa meesha meydadka. Boolisku way soo qaadaan, dhacdaduna wararka ayay gashaa. Markii la sii daayo, Sasha waxay aadaa xeebta oo waxay dhunkataa kambaskii Tommy ka hor inta aysan badda ku tuurin, iyadoo ugu dambayn ka tegaysa dembigeeda.